dhammaan golaha sharafta lena waa salaamaya mar kale waan idinkaga mahad celinayaa sida danqashada iyo dareenka leh ee arintan ku saabsan sharciga iyo sharciyeedka iyo arrimaha tacliinta saraba aad uga hadasheen dhammaantiin adinkoo isku duuban waxaan rabaa inaan soo koobo oo aan ka dhigo qodobo dhammaan su'aalihii ka yimid sidoo kalena aragtiyadii ka yimid sharcigan ku saabsanaa maadaama uu ahaa akhrintii hore mar labaad waa ku mahadsantihiin golaha sharafta leh waxaad xaqiiqdii dareen aadna dareensiinaysaan in uu jiro baahina loo qabo in dalkan dowladnimadiisu ay ka muuqato dhan walba si gaarana waxbarashada dee waxa ugu weyn ugu muhiimsan horumar lagu gaari karaana waa wadana dalna laga qiimeyn karaa waa waxbarasho waxa maanta halkan loo taagan yahayna maalin baa jirtay uu dalkan taagnaa xaalad ah yaa badbaadin karaa waxbarashadii dalka yaa badbaadin karaa aqoonsigii dalka ee waxbarashadeed waa ka soo gudubnay maanta waxaa ilaahay mahadiisa aan uga mahad celinayna cid walbo ka qayb qaadatay inaan u joogno sidee u tayaysan karnaa wixii aan usoo dagaalanay badbaadadii aan usoo dagaalanay 30 sano loo soo taagnaa dad ay ku bixiyeen dhaqaalahooda rag ay ku bixiyeen dhaqaalahooda rag ay naf ku waayeen in maanta loo taagan yahay aan leenahay sideen u tayaysanaa caalamkan aan ula tartagnaa caruurta aan soo saaraynana ee u noqotaa caruur u qalanta ee la tartami karta caalamka intiisa kale adduunkana wax ku soo biirin karta dalkana wax ku soo biirin karta haddii aan soo koobo sharcigan 3 su'aalood sharcigan muhiim ma yahay waa muhiim waxa uu muhiim u yahay tallaabo walba ee la qaadayo waxay u baahan tahay sharciyad sharcigana cidda bixisa ee dastuuriyan u leh mandate-ka waa golaha shacabka sababta loo horkeenayna waa intaas muxuu u baahan yahay maxay tahay ujeedada iyo faa'iidada uu dhali karo sharcigan waxa uu xal u yahay in la jiheeyo tacliinta sare aan nidaamino tacliinta sare lagu sameeyo improvement lagu sameeyo haddii ay jiraan khaladaad yaryar ee ka jira hay-adaha tacliinta sare wada tashi ma laga sameeyey jaamacadaha lagala tashaday waa lala fariistay waa loo sharxay afkaartoodii ku biiriyeen ma u baahan tahay in wada tashi laga sii sameeyo waxaan aaminsanahay waxaan anagoo ixtiraamayna ogsoon gudiyada ku shaqada leh shaqada ay ka qaban doonaan laakiin waxaan adkeynaynaa mar walbaba sharci go'aankiisu bulshada gaaraysa golaha shacabka inagoo ahaana bulshadii matalna waajib baana naga saaran cid walba oo su'aal ka qabta in lala fariisto oo la weydiiyo maxaa ka maqan ee lagu dari karaa maadaama uu xal u raadinayo caruur Soomaaliyeed yaa ka shaqeynaya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa ka shaqeynaysa si guud laakiin shaqo walba oo la qabanayo waxay u baahan tahay cid u xil saaran oo idman sharciyad haysata inay ka shaqeyso sida aawadeed sharcigan waxa uu dhisayaa waa guddigaas horey buu u shaqeynayay waa uu dhisan yahay iyagana ka shaqeyn doona shaqadan anaga u dhiibanay intaas waxaan uga baxayaa sharciga iyo howlihiisa waxaan ugu dambeyn codsanayaa oo soo jeedinayaa golaha shacabka ee sharafta leh in il gaar ah muxuu ahaa lagu fiiriyo sharciga maadaama ahmiyad intaa leeg uu leeyahay cid walba ee golaha shacabka ka tirsan ee xildhibaanada ahna waxa waajib ka saaran in ay baaritaan ku sameyso sidoo sharcigan u shaqeyn karaa dadka ka shaqeynaya sharcigan awoodaha siin doonana sidee uga shaqeyn karaan in badanna guddiga ma ahan aan sidoo kale xoog saarno maxay tahay tayada jaamacadeed ama institution tacliin sare aan rabno inay soo saarno ee sharcigan uu awooda siinayo waa ku mahadsantihiin mar kale sida mugga leh cid walba ee golaha shacabka ka tirsan maanta ay xoogga u saarayso sidii tacliinta sare ee dalkeenu u guuleysan lahaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ka yara baxo ajandaha maadaama uu ahaa sharci ee aan u soo laabto wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare howlaheeda siday ku shaqeeyaan xildhibaanada iyo golaha sharafta leh adinka ah dadka matala shacabka Soomaaliyeed anaga la inoo soo doortay inaan ku matalno codka shacabka Soomaaliyeed iyo baahida ay qabaan aan u gudbino hay-adaha sare ee dawladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare sidaan qiyaasayo maanta uma fadhin umana madlaneen
in laga wareysto maxay qabatay iyo maxay haysaa iyo maxaa socda laakiin maadaama su'aalo qaar ay ka yimaadeen waxaan rabaa si kooban isu gudb inaan uga hadlo systemka dhisan ee waxbarashadeed ee federaal ah ee hay-adaha iyo wasaaradaha federaalku ee qaybta ka yihiinba waxa uu samaysan yahay inuu ka jawaabo baahida carruurta Soomaaliyeed dhammaan xildhibaanada golaha shacabka waxaan ka codsanayaa oo aan u soo jeedinayaa inay ka warqabaan deegaanadooda maxaa ka jira baahi ah carruurta joogta ma helaan waxbarashadii waxaan uga mahadcelinayaa qaar ka mid ah ama badankood xildhibaanada golaha shacabka oo aad u mutaabaceeya aad ula socda aad u wareysta wasaaradda waxbarashada iyagoo ka wareysanaya ma heleen waxbarashadii loo baahnaa iskuulo ma loo dhisay macallimiin ma la geeyey deegaankii maxaa ka maqan waxaan rajaynayaa insha Allah aan codsanayaa qof walbo inaga mid ah maadaama mas'uuliyadda saaran intaas tahay in deegaanadii iyo dadkii la matalaya inta dib loogu laabto la weydiiyo horta serviceka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ma idin soo gaaraa haddii ay haa noqoto waa ku mahadsan yihiin haddii ay maya noqotona diyaar waxaan u nahay anagoo isku duuban laga bilaabo wasaaradaha waxbarashada heer federaal ilaa wasaaradda waxbarashada heer state ilaa wasaaradaha waxbarashada heer federaalba inaan jawaab ka siino waxaan u taagannahay waxay tahay inaan ka jawaabno baahida ardayda Soomaaliyeed iskuulaha la dhisaa jaamacadaha la geeyaa ardayda jaamacada la geeyaa waa la dayactiraa iskuulo macallimiin baa la qaataa intaba baahida deegaanada loo soo gudbiyo wasaaradaha waxbarashada isteedyada ayay ku saleysan yihiin sidaa daraadeed golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa inay ka warqabaan ay la socdaan baahida deegaanadooda ka jirta anagana maalintaasaan ka shaqayn karnaa baahida deegaankaas ka jirta inaan ka jawaabno waa waajib dastuuri oo na saaran anagaan u dhaaranay bulshadaan u dhaaranay waana loo baahan yahay inaan u hadalno mar labaad iyo mar saddexaad waan idinkaga mahadcelinaynaa golaha sharafta leh ay hogaaminayaan guddoonka waxaan rajaynaynaa insha Allah sharcigan inuu xal inoo keeno bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda tacliinta sare uu mideeyo wasaaradda waxbarashadana diyaar waxay u tahay su'aal walba oo ka timaada inay ka jawaabto maasantii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi